walaal marka ugu horeyso dhow magacaaga saddexan ma dhageysatay barnaamijka garashoodag haddii aad dhageysatay maxaad kala socotaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Deeq Cabdul Shaarre waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada Gaalkacyo waxaan ku faraxsanahay inaan maanta tiimka garashoodag aan kula kulmay bartamaha magaalada dhexdeeda waxaan ka mid ahay dhageystayaasha ku xiran barnaamijka garashoodag ama sheekooyinka geedii gobaad oo laga sameeyo dhacdooyin badan oo geeyigeena ka dhaca waana ka mid ah dadka aadka ugu taxan aadna u dhageystaa maxaa si gaar ah ku soo jiitay waxyaabo kala duwan ka kooban yahay barnaamijka mowduucyo kala duwan ayuu ka hadlaa marka waxyaabo adiga sida gaar ah ku soo jiitay maxaa ka mid ah waxyaabaha aadka ani soo jiitay waxaan ka mid ah maadaama nin dhalinyaro ahay nabadda inta badan xooga aad u saaraan barnaamijkan oo lagu hadlo nabadda iyo dib u heshiisiinta iyo xal waara si loo heli lahaa iyo isbeddelka cimilada laftigooda nabadda ay sababto dagaalada colaadaha sokeeye ay sababaan ba aad u helay labadaas ciwaanba ama labadaas qodob baa aniga aad i saameeyay maadaama nin dhalinyaro ahay deegaankan waxyaabaha dhibaatada gaarka ku haya maxaa ka mid ah oo mushkiladaha ugu badan deegaanka ka jira maxaa ka mid ah wallaahi waxaan ka mid ah isdhahi karaa waxyaabaha cimilada isbeddelka cimilada oo waraabka biyaha xilliyada roobaadka daaqsimaha oo ay sababaan colaadaha marar badan deegaanadan ka dhaca maxaa jeclaan lahayd marka barnaamijka lagu soo kordhiyo aragtidaada oo aad is leedahay barnaamijka wax badan buu bulshada faa'iido u noqon karaa wallaahi waxaan aaminsanahay wax badan baa lagu soo kordhi karaa aniga aragtideeda gaarka markaan ku daro waxaan aaminsanahay barnaamijka maadaama uu ka dhaco inta badan uu ka baxo magaalooyinka caadiga oo Gaalkacyo ka mid tahay waxaan soo jeedin lahaa in sanadkan lagu soo biiriyo in la gaarsiiyo meelaha ay tuulooyinka ama baadiyaha hoose barnaamijkan sheekooyinka la gaarsiiyo oo laga daaro dadka sida saxda ay u qusayso nabadda oo in badan ayaga gacmahooda ku sababsadaan in colaadaha ay abuuraan dadka reemiga in la gaarsiiyo oo la gaarsiiyo barnaamijkan loo shoodo loo daaro laga dhageysiyo talooyinkooda la dhageysto waxyaabaha lagu joojin karo colaadda soo la laabatay xal waara si loo helo nabad waarta barnaamijka Facebook-gana waa laga daawadaa live baa uga baxaa sidoo kale idaacadaha kala duwan ayuu ka baxaa masalada fariintaas dad badan way ka faa'iideysteen oo deegaanka ku nool in badan hadda deegaanka waxba gaarisa internetka uu gaarayaa wax aamsanahay deegaanada badanba in fariintan ay gaartay oo meelaha internetka hadda la gaarsiiyay sanadaha ugu dambeeyay waa aamsanahay macluumaadka garashoodag ka baxa ama idaacadaha garashoodag baa wadaagta yihiin inay gaarto fariintan sidii lagu talagalay baa aamsanahay